Sida aad muuqaalka ciwaankiisa ku soo aragteenba muuqaalkan waxaan ku soo koobi doonaa sida website-kaaga aad ugu xiran lahayd Google AdSense. Channel-kan waa channelka culumta internetka. Fadlan subscribe saaro kambalelkana furo si aad nala socoto. Soo furo browser-ka aad isticmaasho Chrome ama Firefox wuxuu ahaadaba googleadsense.com waad ku soo qoraysaa kadibna linkiga ugu sareeya dhufo kadib waxaad samaynaysaa linkigan ugu sareeya marka aad saas ugu soo dhufato wuxuu ku keenayaa dashboard-kan ayuu ku keenayaa get start ayaa taabanaysaa website-kaaga ayaad halkan gelinaysaa. Hadda website-ka aan rabno inaan maanta Google AdSense aan ku xirno waa hibacali.com. gabadhan ayaan website-keeda ku xiranaa Google AdSense. Marka meeshan get more of AdSense ay ku qoran tahay waxaa laga wadaa maalin kasta waxaa kusoo dhici doona fariimo oo update-ka ka hadlaya waxyaabaha lagu soo kordhiyo waxyaabahaas ka hadlaya. Haddii aad rabto yes ayaad dooranaysaa, haddii kalena no. Aniga no ayaan doortay sida ujeedaba. Kadib waxaad meeshan ka raadinaysaa waddanka aad rabto addresskiisa inaad ku xirato. Soomaaliya kama shaqeeyo Google AdSense, saas daraadeeda wadamadan Yurubta iyo America iyo meelahaas ayaan ku xiranaynaa addresskooda. Haddana waxaan raadinayaa UK ayaan raadinayaa qaybtan hoos haddaan ka fiirino UK waatana waan ku xiranayaa United Kingdom. kadib meeshaas hoos ayaan calaamadaas tick siinayaa calaamadaas ayaan tick taabanayaa. calaamadaas marka aan tick taabto kadib start ayaan leeyahay. start marka aan dhaho kadib Google AdSense-ga sidaas ayaan ku samaystay. kadib wuxuu iga rabaa kaliya inaan aan information-ka sii wado oo aan geliyo addresskayga iyo website-ka inaan ku soo xirno bis aan oo dhiman balse wuu noo samaysan yahay Google AdSense-ga. Tell about us meesha ay ku qoran tahay ayaan taabanaynaa. meeshan ayaa ah meesha ugu muhiimsan. waxaan ku qoraynaa addresskan ayaan ku qoraynaa. aniga addresska waa ka qarsanaya adina kulito insha Allah. qaybtaas adna address line 1ka sidaas ka dhig. line 2 waa la iskaga tagi karaa United Kingdom marka la joogo, laakiin meelaha wadamo qaar oo line 2 la adeegsadaa jiro balse United Kingdom line 1 bas ay leedahay. marka aniga igu dayso qaabka aan sameynayo oo sameey adina insha Allah waa qaabkan ayaad furanaysaa adiga oo sidan u buuxi insha Allah waa guuleysanaysaa. qaabkan u buuxi waxaan oo dhiman postal code-ka ayaan gelinayna qaybtan hoose. marka fadlan intaan haddii aad nala soo gaartay waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka like noo saarto, channel-kana aad subscribe dhahdo, siina share garayso si aad asxaabtaada ay uga faa'iidaystaan muuqaaladan iyo runtii casharada meeshan aan soo gelino. kambalelkana taabo si aad ugu mid noqoto dadka ama ardayda nala socoto mar walba su'aalaha naga soo weydiiya commentiga. qaybtan hoos waa postal code-ka ayaan gelinaynaa. marka intaan aniga waa ka qarsaday waana ka xumahay kulito islama wadaago addresska. intaas aadna sidoo kale sidaas ugu taxdir xogta addresska aad ku samaysanayso. marka intaan kadib waxa waaye waa verify gareynaynaa code-kaas ayaan meeshan gelinay runtii adina uu ka dalban doona inaad verify gareyso. optional bay ahayd balse hadda uu igu adkeeyay saas daraadeed ayaan u verify gareynayaa. marka aad soo verify gareyso intaan kadib waxaa kaa dhiman kaliya inaad AdSense apply gareyso. qaybtan AdSense connect site to AdSense meeshan request ayaan sameynaynaa. request marka aan sameyno near qadka yara culus. request marka aan sameyno kadib waxaan code-ka AdSense-ga ayaan gelinaynaa website-keena sida ujeedaba. thank you for your connected site. intaas oo kaliya waaye. halkan qayb aan oo dhiman oo ah ayadan meeshaas inaan confirm gareyno. meeshan code ayaan meeshan ka qaadaynaa. waxaa arkaysaa meeshan sida aad aragtaba xoog qadka naga culus laakiin wuxuu ku tusaa AdSense-ga sida uu soo muujin lahaa website-kaaga. marka code-kan ayaad waxaad gelinaysaa HTML-ka website-kaaga. haddii aad WordPress isticmaalayso waxa waaye theme-ka
WordPress isticmaalayso iyo haddii Blogger aad isticmaalaysaba koodhka isku si ayaa loo geliyaa, laakiin labada website ayaa kala duwan. Koodhkan waxaad gelinaysaa, koodhkan hadda aad u jeedo ayaan copy dhahaynaa, waxaana gelinaynaa website-keena ayaan meelo badan ka dhigaynaa. Sidaad u jeedo HTML-ka website-ka waaye qaybta theme-ka. Marka aan intaan soo gelino website-keena sidaas ayaan AdSense ku dhignay, balse waxaan rajaynayaa inaad meelo badan oo website-kaaga ka mid ah dhigi doonto HTML-kiisa. Tani waa tusaale halkaas xaba waxaan dhignay header-ka website-ka ayaan dhignay. Marka aad intaan sameyno kadib waxaan leenahay processing save, markuu dhahno waan ka tagaynaa. Sidaas ayaan website-ka gelinay. Website-ka hadda aan gelinayso ujeedin waa WordPress, aan xayeysiinta furay WordPress waaye. Qaybtii saddexaadna sidaas ayaan ku soo confirm gareynay. Haddii aad fiiriso qaybta hoos waa active, qaybta kalena waa ay fiican tahay. Qaybta saddexaadna sidaas ayaan ku soo habeynay. meeshii hadda Explorer-ka ay ku qorneed sidaas ayaan ku confirm gareynay. Sidaad u jeedo AdSense is confirmed meesha ay ku qoran tahay. Sidaas ayaad website-kaaga ugu xiratay Google AdSense. wixii caawinaada insha Allah commentiga aragtidaada ka soo dhiibo. waxa aan ka caawinayna meeshaas noogu soo qor. waxaa kugu xirmay Google AdSense ayaa kugu xirmay website-kaaga. sidaad u jeedo AdSense confirmed, qaybtan hoosena aqbalaada ayay sugaysaa. Markan haddii aad muuqaalkan ka heshay like saar, subscribe saar channelka, gambaleelkana furo, saaxiibadaadana halkan ku soo mention garay. insha Allah wabillahi tawfiiq. wixii caawinaada commentiga, sidoo kale email-yadan iyo lambaradana waxay ku qoran yihiin about YouTube-keena. halkaas naga soo boqo insha Allah.